anigu magacayga waxaa la yidhaha Maxamed Cali Dhoore. Da'diiduna waxaa waaye 75 sano. Waxaan adduunka ku soo biiray 1946 ilaa maantaydaan aan idinla sheekayahayna intaas xamaraan ku dhex jiray. Intaan yaray waxba ma aanan garan markaan garaadsaday. Waa markii aan garaadsaday waxay ahayd intaan Talyaaniga xamar soo gelin 1950 oo soo gelin magaalada Muqdisho intay ka koobneed. Magaalada Muqdisho hal degmo ahayd. Waxay ka koobneed 7 xaafadood. 7daas xaafadood waxaa ka mid ah xaafadan Wardhigley, Boondheere, Shibis oo la dhihi jiray Balaaja Carabo, Shangaani, Xamarweyne, Cabdulcasiis oo la dhihi jiray Kaamba Maxaaro iyo Xamar Jajab. intaasoo xamar ka koobnayba Talyaaniga markuu soo galay 1950 intaas asoo xamar ka kooban yahay Talyaaniga wuxuu soo galay 1950 asagoo ahay macallin tababar ah oo ummadda Soomaaliyeed inuu gobonimo gaarsiiyo 60ka loogu talagalay ayuu xamar soo galay. Shaqadii uu qabto ugu soo reeyday waxuu qoray ciidan qoray ciidankaas 4 batalyan oo meela iyo 1 batalyan oo meela iyo 1 batalyan oo meela 6daas batalyan oo qole 4 batalyan waxaa la dhihi jiray xiisaanley. ciidan xiisaan dhaxda ugu xiran yahay ahay maro dheer oo adiga aad moodid mataqaanaa ku beerta la jeexay oo dheer aad dhabarka ay ku duuba jireen oo kala kalara 4 batalyan 4 kalaray lahaayeen. ciidankaas markuu qoray Aabe ka mid ah raggii markaas ciidankaas qortay. Aabe ciidankaas qortay. Aabe hooyadii waa kala tageen. Aabe anigu gacanta ugu dhigay. Aabe anigu horta horu raacay marka. Aabe waxaa loo bedelay waajid. waajidaa loo bedelay waa qaadayay waajidu u geeyay waa ka soo laabanay xamara la keenay meel hadda xere meesha hadda meel ku taalo istaadiya Koonis geeskeeda soko meel ku taalo baqaaro waaweyn ay ku yaaliin xere military ah jirta 52 kadib dawladii rayidka ahayd waxay ka dhigtay baqaaro la yiraahdo economato waxa lagu iibin jiray qalabka dhismaha sida masaamiirta alwaaxda lamiyeeriga dawladdu keeni jirtay meeshaas baqaaradaas miya economata zamanka dambe loo yaqaan laakiin zamankeedu xere military ahayd oo markaas xeradaas military markii baydhabo laga soo celsho meeshaas kaan meeshii anoo joogo nasiib wanaag aabahay xisbiga leegada inta xooga qalbiga ka qaad oo istantiibadiisii halkan ku xirtay istantiibada leegada oo halkan ku xirtay aabahay waxa markii Talyaaniga ay ku arkeen xisbiga inuu sita adii siyaasi taageerin tuuma baada non odio military shaqada laga eriyay aabahay shaqada sida looga eriyay waa iska tag nin la dhihi jiray oo caan xamar ka ahay oo la dhihi jiray Xasan Maxamuud Shooriye oo caan magaalada Muqdisho ka ahay xeryaha ciidamadana kula hay makhaayado xeradan la yiraahdo gaadiidka booliiska laakiin barigaas la dhihi jiray outer department loo yaqaan konton labadii oo yiri aabahay aliyow maqaadan iyo wad aniga hawlka wala kalan ku mashquula aabahay markaad maqaayada la wareeg saas uu jiga anigana maqaayada lagu kori jiro meeshaasaan joogi jiray saraakiil badan oo hadda aan dadka inta badan aad wada taqaaniin ayaan qaar meeshaas ku bartay adiga konton labadii bishiyaan xusiisnayn laakiin 14 nin oo sarkaal ah oo saraakiil ah oo alifliyaal ayagoo Itaaliya loo qaaday 14 nin 14 nin inta badan inay taqaaniinaan jecelahay waxaa ka mid ah General Aidiid waxaa ka mid ah Cabdullaahi Yuusuf Axmed waxaa ka mid ah Salaad Gabeerekidi waxaa ka mid ah ninka la dhihi jiray Abu Kursuley Abu Kargacal Muday Baarqaba ka mid ah waxaa ka mid ah Cabdullaahi Eegeedka ninka la yiraahdo Maxamed Cali Samantar waxaa ka mid ah Doonyaale waxaa ka mid ah raggaas waxaa ka mid ah laba nimo reer Hiiraan ahdo Nuur Cadow nin la yiraahdo iyo nin la yiraahdo Xasan Gaamuur laba nimo Carabaha ku jirto mid la dhihi jiray Cabdalla Maxamed Faadil caan oo ahay gulay sare toordo ka mid ah iyo nin la dhihi jiray Cabdalla Sandheere
oo ultima asagoo booliiska ku haray laakiin ninkan military u aaday waxaa ka mid ahay adigu rag 14 nimay ahaayeen 14 nin Itaaliya loo qaaday 54 xamar ku soo laabteen xamar markay 54 ku soo laabteen ayagoo xidig dhalaalayso wato xidig layaal ah oo xidig biraho dhalaalaydo wato niman badan oo 8 nimo haddana marka waxa jirta Brima Academia la dhigi jiray oo ayaguna laba xidig layaal ahay oo 12 kaasna waxa 8 daasna waxa kamid ahay Maxamed Siyaad Barre Maxamed Abshir Muuse Mataan Daawud Cabdulla Xirsi Xuseen Kulmi Afrax ninka la dhigi jiray Aadan Kuukay nin liiqato Cabdulla Barre Qalaaye xabada iga dhiman xabadkii hadda maskaxdayda ka baxay la iloobi karaa 52 sano ka hor la sano ka hor waay xabadkaas iga maqan adiga nimankaas oo laba xidiglayaal ah oo nimankaan xidiglayaal markay yimideen ayagana xidigii loo cadeeyo bira looga dhigay xidiga biraha looga dhigay ninkan Maxamed Siyaad Barre waxaa laga dhigay Commander Divisione Regione Banaadir af Soomaali taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka Banaadir barigaas wuxuu ka koobnay Baraawe iyo Qoryooli iyo Daafeed Afgooyi Marko Xamar Balcad Jowhar Aadan Yabaal iyo Cadale intaasaa gobolka Banaadir bariga hore la dhihi jiray gobolkaas Banaadir taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka Banaadir Maxamed Siyaad Barre markaas ahay General Daawud asagana waxaa laga dhigay taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka Hiiraan asagana laga dhigay laakiin nimankan kale hadda ma xusiisto kuwan kale labadana aad xusiista labada kuwa waa iloob waa ka soo gudub nimankaas markay ay isku xamar la isku yimid markii ay kuwan dibadda ka yimideen oo taliyaasha kuwan laga dhigaa wixii military loogu talagalay ragga xiisaan leedahay military loogu talagalay ma ogtahay military ahay hal maraa kulli booliis laga dhigay waxa dhan oo dalka joogo wardiye Faransadii iyo ilaaladii maahe inta kale booliis laga dhigay wardiye Faransadii ilaalada gooni ahaayeen kuwaas oo ayagu wardiye Faransadu waxay xisaabsaneed tributary ahayn kastamada jooga jireen canshuuraha dekada iyo meelaha kastamada wax soo gala shaqada tributary lahayn wardiye Faransa ablaayba eragaaba saasaba fasalkiisa ka soo gudub marka nimankan ilaalada liirana gubernatorial shaqay jireen ayaguna gubernatorial shaqay jireen gubernatoruhuna adiga amniga dalka amniga degmooyinka oo dhan gubernatorial mas'uul ka ahay ka soo gudub marka nimankan markii 54 kulli booliis laga wada dhigay booliiska ay ahaayeen 56 kuwaan dib loo celshay haddana xidiglayaasha dib loo celshay waxa lagu celshay Itaaliya haddana 14 dib loogu celshay 56 soo laabteen laba xidiglayaal kuwaana qaarna gaashaan layaal noqdeen qaarna kabtanay noqdeen waa kuri u durkeen 58 waxa haddana la soo rogay liiri military waa in la helaa oo military la baxshaa booliiskana la kala reeba hal la kala saaro General Daawud iyo Maxamed Abshir Muuse Mataan labadooda saasaan ninkaana taliyaha ciidanka booliiska laga dhigay ninkaana taliyaha ciidanka xoogga dalka laga dhigay xoogga dalka markaas ma samaysno laakiin military-ga waa inti markaan xiisaan leeyahay dhan kulli military ahayeen xoogga dalka ay camal ahayeen waa baxeen auto meel liira auto group ay u guureen markaas oo hadda liira xalanay barigaas auto group la dhigi jiray auto group-daas u guureen nimankan taangiyaalkii iyo xataa calaamada booliiska ku buufsantaa rinjiga booliiska marsanay rinjiga booliiska waa taqaani waa rinjiga buluuga booliiska iskale rinjiga military waa rinjiga cagaaran oo kaakiga labadaas rinjiga kuwan rinjiga kaakiga ay taangiga ku buufsadeen way baabuurtooda ku buufsadeen xagii u guureen labadan nima markaas laba gaashaan la sare laga dhigay darajadoodii la dalacay mugta laba gaashaan la sare laga dhigay kana booliiska loo dhiibay kana military loo dhiibay saas markay taa habeenkii 60 calanka la saaray habeenkii 60 calanka la saaray prima kowda luulyo laba general loo dalacsiiyay labadoodii kana ciidan markaas la yiraahdo
habeenka luuliya waay marka la dalacsiyahahe bishii abriile ayay 2,000 askari qoreen oo 2,000 askari gobolada dhan iyo xamar iyo kulli laga soo qoray 2,000 xaalana lagu xareeyey oo tagruuba la dhihi jiray meeshaasay ku xareeyeen markaas waaye marka Esercito Nazionale Somalo la dhihi jiray markaas ciidanka la qoray Esercito Nazionale Somalo la dhihi jiray baabuurtooda markaas Esercito ku qoreen ay Esercito ku qoran tahay baabuurta aan xorriyaddii markii calanka la saaray oo xorriyaddii la qaatay nimankii reer waqooyiga ahaa noo yimid oo isku soo nugu darmeen af Soomaaliga iyagaaba noo keenay markaas eragaan af Soomaaliga darajada kulli af Talyaani lagu sheego aliflaha le prima agente sergente maggiore ispettore sottotenenti capitano maggiore saas loo yaqaan ay af Soomaaliga dee waxaan daayay yiri war Soomaaliku hadlo alifle yalla alifle iyo saddex alifle dhaha xidigle laba xidigle kabta dhamme dhaha gaashaan la dhexe gaashaan ay erayadan af Soomaaliga ayaga keen baabuurtii Esercito ku qoreedna intay ka tireen 1963 ay inta ka tireen ay waxay ku qoreen geedkii muxuu ahay waxay ku qoreen xoogga marka Soomaali ma jirin markaas meesha xoogga ma haadi meesha laga ay ka dhigan laga dhigan xoogga ay qoreen xoogga 64 dagaalkii dhacay Soomaalidu taqaana reer Maryolida marmaan joogan Allah Esercito waa warkiya ka dhum hoogay inta qorteen ay dagaalkii hoogay hadda lugaa la galeen asaas lagu qosli jireen hooggaadaas nimankan af Soomaaliga kadan ilaa af Soomaaliga laga barto hadeer taatay labadii af Soomaaliga la qoray inta ka horeed intaas markaan uga soo baxo xaggan markaad waxaan qodobka saddexaad oo ahay inaan duq magaalo kii ugu horeeyay bari la asaasay 1954 la magacaabay ninkii sindikada la Muqdisho nin Talyaani oo la dhihi jiray Carlavecco ahaayay xilkaas marka Carlavecco oo ahaayay xilkaas waxaa lagu wareejiyay nin Soomaali oo la yiraahdo Sheekh Jamaal Soomaalidu ay u taqaan Jamaal Jabshe waxay Jamaal Jabshe kula dhacdana ana idin sheegi doonee Jamaal Jabshe Sheekh Jamaal shaqadu qabtay oo bilaabay waxay tahay magaalada waa ku artay geeda waaweyn oo jidkan korso Soomalo iyo magaalada dhan oo dhaxdan geedaha waaweyn oo ka baxayo barigaas la abuuray 1954 la abuuray beer geedaas oo abuuray Sheekh Jamaal waxa uu sameeyay marka wadooyinkan la yiraahdo mataqaana waa taqaanin SYL-ka wadada ka tagaydo isbitaal Martiini gelis waa garateen wadadaas SYL-ka inta ka tagto isbitaal Martiini gasho oo xaafadaas isku rarana la dhihi jiray dada deganay dadkii laga jabshay xaafadaas wadadan kale masaajidka Sheekh Abdul Qaadir iyo guriga haweenka dhaxdooda marto oo ku dhacdo beerta nabadda oo wadadaas ku dhacdo iyo wadada Yoobsan inta ka tagto iyadana beerta nabadda ku dhacdo oo isla wadadaas leesaga ku gilda iyo wadadan la yiraahdo VA Jito oo wadadaas le ku dhacdo afartaas wado dadkii deganay iyo meeshan godka biyaha fariistaan ma aragtay godka biyaha fariistaan oo degmada Xamarweyne dhawaan ka saaran godkaas biyaha ay fariistaan iyo Jinema Africa meesha ku dhisantahay iyo guryahan waaweyn oo Ibrahim online meesha ku dhisan waxaas dadkii deganay oo dhan inta la kaashay waxa lagu aas-aasay degmadan hadda la yiraahdo waa bari oo barigaas loo baxshay Village Nove daas lagu aas-aasay Village Nove markii lagu aas-aasay degmadaas dhul cabir dhulkaas ugu horeeyay meeshan buule eelay ka bilow ilaa irda afisioni inta ka dhaxaydo aas loo cabiray haddana skora loo laabay asaa dhinacaas buurkan la soo aadiyo hodan xageeda loo dejiyay laakiin 7 ka dambe 69kii 59kii la cabir doona dhulkaas xalahan 56 dhulkan la cabiray waa bari
ancelotti yaa kadib loo baxshay iyadoo village nova loo yaqaano 1956 ilaa 60kii village nova loo yaqaan 60kii markii la gaaro ilaa 69kii inta ka dhaxaydana ancelotti yaa loo yaqaan ancelotti iyadoo loo yaqaan kacanku markuu dhashay magac waa ka bedelay waa beri u baxshay ilaa hadda waa beri yaa loo yaqaan magac saddexaad ee qaadata waa degmadaas waxa magacoodu regular ah haystaba degmo magaceedu regular ah haystaba waxaa laga arkaa dhigli idina waa laga bedelay hadda warta nabadda loo baxshay bondere kow shingani labo xamar weyne saddex xamar jajab afartaasaa magacoodu regular ka haysto inta kale magacyadu waa laga bedelay sida shibis bilaaja arabaa la dhihi jiray shibisaa loo baxshay taas kaamba amxaara la dhihi jiray cabdulcasiisaa loo baxshay warligley warta nabadda loo baxshay magacyadayda laakiin saddexdan lagama bedelin magacii ay ku dhasheen ayay haystaan ka soco marka sheekh jamaal shaqada uu qabtay dhulkaas markuu cabiray 1959kii waa doorashaa timid doorashadiyaa waxaa ku guulaystay nin la yidhaahdo axmed muudo xuseen dhulkan wuxuu cabiray hodan iyo howlwadaag dhulkan hadda la yidhaahdo oo isku wada daraayo hodan la isku wada dhihi jiray hodantana waxay wahay magacan hodanta la yidhaahna shineemo la yidhaaha ku taalo meesha oo lahay nin la yidhaahdo maxamed saciid ciyow gentleman soomaalida u taqaan iskale shineemada meeshaasuu ku dhistay shineemo hodanaa loo baxshay degaankii oo dhanaa hodan marka magaciisaas u qabtay xagee degantaa shineemo hodana deganaa hodan degmadii magacii hodanta saasaa lagu siiyey ka soco marka shineemo hodantii markay saas u cabirantay waxaa la wareegay nin la dhihi jiray cumar sterlin aasiin dika noqda haddan cumar sterlin wuxuu cabiray dhulalkan waaweyn oo hadda aad lambar 4 ka bilow ilaa halkaasoo dhulkan oo damyaalaha oo koronta ah oo waaweyn iyo dhulalkan suuqbacaad ku yaallo tarantad ah oo waaweyn awal dhulka doodisha la cabiri jira hodan oo dhan howlwadaago dhan waa beri bondere waa doodishi waa intradish laakiin dhulkan waaweyn ninkaas cabiri nin la yiraahdo عمر سترلين oo sindikii saddexaad ah waxa Umar Sterlin markuu ka tagay waxa loo dhiibay nin la dhihi jiray Kaynidiid Axmed Yuusuf waxa uu ahaa nin ilbaxo shaqadoo qabtay magaalada nalalkeeda oo magaalada ka shidan guluub uu ahaa kuusan oo gudguduudan marka nalal gudguduuno dab iyo shidan oo yar loo iftiin saas aan lahayn oo lambadan dheero valor jantaha ah oo cadcado dheerta lambadahaas uu ku xiray asaguna magaaladu iftiinsh kow meelo wuxuu sameeyay dadku haday daalaan ay biyo ka cabaan oo saas loo riixo biyo ka soo dhaayo laga cabo oo sameeyay wax yar wahay 2 sano uu joogay Kaynidiid Axmed Yuusuf Kaynidiid waa ka baxay Axmed Muudo Xuseen ku soo laabtay misla Axmed Muudo ku soo laabtay Axmed ilaa adiga iyo 7 meelahaas waay kadib waxa Dr. Aydruus nin la yiraahdo qabtay asoo Dr. Aydruus hayo انقلابكي يابي يمد ريفولوشني 9 bilood انقلابكي يمد military markaas la wareeg